بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي وانكو سلامي دقيقة ده كوبان ee nagu soo socdo waxaan doonayaa in aan halkan kugula wadaago xaaladihii ugu dambeeyay ee markaasi laga soo tabinaya bariga dhexe xilli duqeymaha Israa'iil ay wali yihiin kuwa markaasi ku soconaya Gaza. Xamaasna xaalad mar kale duqeymo culus ay la bartilmaameedsatay magaalooyin dhowr ah oo gudaha dalka Israa'iil ah. Qasaare ayaa la soo tabinaya labada dhinac. waxaan rabaa inaan kula wadaago guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyay dagaalka oo noqday mid galay maalintii lixaad. Israa'iilna waxa ay tilmaamtay in korontada shidaalka ama gargaarka bini'aadanimo aan la geyn doonin Gaza ilaa Xamaas ay sii deyso dhammaan maxaabiista ay hayaan. wasiirka tamarta Israa'iil si jees leh ayuu u hadlay boggiisa gaarka ah ee Twitterka qoraal uu soo dhigay ayaan markaas rabaa inaan kula wadaago haddii Rabbi uu karaal noqdo. madaxweynaha markaasi Iran Ibrahim Rizi markii ugu horeysay waxa uu qadka telefoonka kula hadlay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman tariya markii hogaamiyaasha ay dib u soo celiyeen xiriirkooda bishii Maaj. waxay ka wada hadleen xaaladda Falastiin. waxay markaasi muujiyeen in garab istaag ay muujin doonaan. si kulul ay u hadleen hadalladii dhaxmaray ayaan rabaa inaan kula wadaago haddii Rabbi uu karaal noqdo. sirdoonka Masarna waxa uu ka saameyn batay Israa'iil kadib marka ay heleen sirdoonka Masar xogaha la xiriira in markaasi Israa'iil uu ku wajahan yahay weerar culus. sidee bay Israa'iil markaasi uga sii foojignaan weysay kadib markii la siiyay xogta ah in weeraro ay ku soo wajahan yihiin. sidaas oo kale sidee ayay nidaamka difaaca Israa'iil ku celin waayeen gantaalada ay markaasi adeegsanayeen xoogaga Xamaas. waxaan doonayaa in aan kula wadaago xoogaga markaasi Xamaas gantaaladii ugu dambeeyay ay markaasi tuureen isla markaasna difaaca Israa'iil uu celin waayay iyo sirdoonka Israa'iil oo fashilmay ayaan rabaa inaan kula wadaago haddii Rabbi uu karaal noqdo. daawaday balse haddii aad ku cusub tahay YouTube-keena aan ku xasuusiyo in aad subscribe saarto gambaleelka aad furato si mar waliba aan halkan kugula wadaago xoogihii ugu dambeeyay ee markaasi la xiriira bariga dhexe. ugu horeyn warkayaga marka kan aynu ku bilowne. Israa'iil si jees leh ayay kaga hadashay xaaladda bini'aadanimo ee xilligan Gaza ka taagan. waxa ay sidaas oo kale sheegtay Israa'iil in biyaha iyo korontada aan loo deyn doonin ilaa iyo Xamaas ay sii daayaan maxaabiista lagu qabtay dagaalka. sidaas oo kale Israa'iil waxa ay tibaaxay in aysan waxba ka gelin nolosha xilligan halkaasi ka jirta. wasiirka tamarta Israa'iil oo ka hadlayay waxa uu sheegay in xilligaani ay u baahan yihiin in la sii daayo maxaabiistooda. qoraal gaar ah uu soo dhigay boggiisa gaarka ah ee Twitterka ayuu kaga hadlay arrimahaasi la xiriira. waxa uuna tibaaxay in markaasi Xamaas looga baahan yahay in ay sii deyso tirada maxaabiista ah ee xilligaani hayso. isaga oo tilmaamay markaas in biyaha korontada iyo gargaar bini'aadanimo intaba aan la gaarsiin doonin ilaa iyo Xamaas ay sii deynayso maxaabiista xilligaani ay ka hayso Israa'iil. waxa uuna qoraalkiisa sidaas oo kale uu markaasi qaybta dambe ku soo qoray bini'aadanimo ilaa iyo 3 jeer soo noqonaysay. isaga oo sidaas oo kale jeesaya ayaa waxa uu sheegay in aan markaasi la cadaadi karin Israa'iil. waxa uuna tibaaxay in markaasi ay u baahan yihiin kaliya in maxaabiistooda loo sii daayo. wasiirka tamarta ee markaasi Israa'iil ayaana sidaas boggiisa gaarka ah ee Twitter ku soo qoray. wasiirka tamarta Israa'iil ayaa intaas waxa uu sii raacsiiyay in cidnaba aysan markaasi ku qasbi karin ama aysan markaasi ku jiljili karin akhlaaqda. waxa uu sidaas oo kale hadalkaani noqday mid carab badan ka dhaliyay guud ahaan ummadda muslimiinta ah. Israa'iil ayaa sida ay doonto markaasi u hadlaysa xilligan iyaga oo aanan u aabayeelin xogaha la xiriira duqeymaha culus ee markaasi marinka Gaza xilligan ay ka wadaan. Israa'iil ayaa geesta kale markan xilligan waxa ay joogaan in sirdoonkoodii uu fashilmay kadib markii xogaha weerarka ee Israa'iil ku sii wajahan ay horay u heleen sirdoonka markaasi Masar. waxaa soo baxaya warar sheegaya in Masar ay uga sii digtay Israa'iil in uu ku soo socdo dagaal xoog leh 3 maalmood ka hor inta aysan Xamaas xuduudda ka soo gudbin oo aysan weerar ku qaadin sida laga soo xigtay gudoomiyaha guddiga markaasi hoosaadka ka tirsan ee Congress-ka Mareykanka. madaxa guddi hoosaadka aqalka wakiilada ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha dibadda Michael McCaul waxa uu sheegay xilli warfidiyeenada uu markaasi la hadlayay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu warkaasi markaasi loo sii sheegay balse haatee Netanyahu uu been abuur ku tilmaamay.
waxa uu sidoo kale uu markaasi aad isha loogu hayay sirdoonka Israa'iil sida ay markaasi ugu guul dareysteen in ay ka hortigi waayeen weerarkii markaasi ugu dhimashada badnaa ee markaasi Falastiin ay ku soo qaadeen Israa'iil muddo 75 sano ah. waxa uu sidaas oo kale la sheegay in Masar ay ka sii wareysay. waxaan ognahay in Masar ay uga digtay Israa'iil 3 maalmood ka hor in dhacdadaas oo kale ay dhici karto, ayuu yiri Majel xilli markaas saxaafadda shir jaraa'id uu qabanayay. waxa uu sidaas oo kale sheegay in markaasi lala yaaban yahay ilaa iyo haatan qaabka markaas Israa'iil ay uga hortigiisay. ma doonayo in aan aad ugu dheeraado xogta sirta ah, laakiinse digniin ayaa la bixiyay, ayuu yiri mudanahaas ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee markaasi arrimahaas ka hadlayay. waxa uu sidaas oo kale tibaaxay in loo baahan yahay in markaasi waxyaabaha qaar aan la dhalisan. Mikul waxa uu intaasi ku sii daray in laga yaabo weerarkan in la sii abaabulay muddo lagu qiyaasi karo sanad ka hor. ma hubo sida ay markaasi waxa uu yiri ma hubo sida ay noo sheegtay, ma hubo sida ay Israa'iil u sheegtay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. xukuumadda Masar si rasmi ah uguma aysan hadlin in ay digniin siisay markaasi Israa'iil, laakiinse warbaahinta dalkaas oo markaasi xiriiro dhowlo leh sirdoonka ayaa qaar ka mid ah waxa ay qorayaan akhbaarta markaas Arbacadii aynu ka soo gudubna la helay. sargaal ka tirsan sirdoonka Masaarida ayaa sheegay in wakaaladda markaasi la yiraahdo Associated Press in Qaahira ay uga digtay markaasi Tel Aviv waxa markaasi ku soo socda. waxaan uga digday in xaalad qaraxyo ah ay ku soo socoto oo ay markaasi goor dhow dhacayso, waa ayna dhacday taxaalkii sidaas ayuu noqday. sargaal sare waxa uu sheegay in markaasi saraakiisha Israa'iil ay markaasi iska indhaytireen qataraha markaasi aadka u xoogan ee ku soo socday. sida uu sheegay wargeyska la yiraahdo The Financial Times oo soo xiganaya 2 sargaal oo aan magacooda la sheegin, arrintan si fiican ayuu la socday. waxaana sidaas oo kale la tibaahay in Israa'iil xogahaasi la siiyay, balse inta badan waxyaabaha la yaabka leh ayaa noqday sida markaasi difaaca Israa'iil uu kaga hortigi waayay gantaalaha ay Xamaas adeegsanaysay, kuwaas oo markaasi dhulka hoostiisa lagu sameeyay. nidaamka difaaca Israa'iil ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ahaa mid si aad ah loo xayeysiinayay. marka loo eego dalal badan oo Carabta ah ayaa saf ugu jiray in ay iibsadaan, sidaas oo kale dalal uu qayb ka yahay Mareykanka ayaana iibsaday. xilligan waxaa fashil u muuqday difaaca markaasi gantaalada ka hortaga ee Israa'iil kadib markii uu xakamin waayay gantaalo dhowr ah oo dhanka Xamaas ka yimid, kuwaas oo soo gudbay gudaha markaasi Israa'iil. waxaana sidaas oo kale xilligan uu u muuqdaa nidaamka inta badan la isbuunbuuninaya ee difaaca ah ee markaasi Israa'iil in uu ka hortagi waayo guud ahaan qataraha dhowrka ah ee markaasi ku soo socday. daawada halkan waa madasha waad ku mahadsantahay la socodkii la janqaadka warkaya. haddii rabbi uu kor noqdo barnaamijka xiga ayaan doonaynaa in aan kugula wadaagno xogo dheeraad ah oo la xiriira arrimaha xilligan ka soo cusboonaaday bariga dhexe. balse ha naga hilmaamin in haddii aad nagu cusub tahay subscribe aad saarto, muuqaalkeenana like aad saarto, qaybta hoose ee commentigana oo raahdaada aad nagula wadaagto. halkan waa madasha wararka ee mahadsan.